weelkii markaasi wixii ay ku jiraan kulaylka ahay ayaa gacanteedii ka fakaday markaasuu wuxuu ku dhacay wiil oo isagu uu dhalay famaata isla markii uu dhintay markii canugii YouTube-kaanu waxa uu qaban doonaa haddii alla yiraahdo nashrinta diinta islaamka inaanu ku fidino oo aanu gaarsiino dadka walaalahayna ah oo Soomaaliyeed ahlu khayrka ah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayidina wa nabiyina muhammadin wa calaa aalihi wa sahbihi wa sallama ajmaciin qaala allahu tacaala fi kitaabihi al-aziiz إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم الحمد لله إلهي بقى مهد سبحانه وتعالى نقدقي ضد مسلمين ونقول المامي كتبتي هراء ومنزلة هذي أنبيادي إلهي سبحانه وتعالى وكسو دجيي وتوضح الله سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس دادكينا أمة المحمد إلهي سبحانه وتعالى وهو إذنكم مقعاب المسلمين كتاب كان قرآن كان إنتان لسود جن كهر كتبت منزلة هذا رسوش إلهي لقسو دجيي ayaan inaan muslimiin nahay ay ku tiilayo ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu waxyooday rusushii la soo diray marka hadda sharafta ugu weyn oo ilaahay nasiye subhanahu wa ta'ala iyo nicmada kubrada ah oo ilaahay nasiye waa nicmatul islaam qofka muslimka ah wax u dhiman uma jiraan ha noqdo qof faqiir ha noqdo mid qani ha noqdo mid mutawassit ha noqdo mid si kastaba aha noqdo mar hadii ilaahay muslim ka dhigay waxa tahay ilaahay wixii uu bixiyay koonkan wixii ugu khayr ka badnay qof la siiyay ayaa tahay haddana hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka ilaahay uu ku siiyo waa sharafti ugu dambeysay oo insaanka la siiyo waxaan idin soo jeedi doonaa ilaahay hadii uu yiraahdo duruus oo musalsalaada oo markaasi marba aynu qayb ka soo qaadano anagoo fiirinayna waxa mujtamaca muslimka ah oo Soomaaliyeed dal iyo dibad meeshuu joogaba qalbigiisa wax ku kordhi kara oo maartay ziyaadatu khayr fi qalbihi ka dhigi kara anagoo soo qaadan doona insha Allah ta'ala waxaa kaloo imaan doona hadii alla yiraahdo in maartay kitaab oo xariira oo kutubta ama samaartay tafsiir ba ama ahadiista ama fiqhiga ama aqeedada ama arabiyada wixii ilaahay naga waafajiyane ayagoo sidaas ah oo maartay xariira ayaa insha Allah ta'ala waxaan jecelnahay ummadayna inay gaarto إلهي سبحانه وتعالى قفك عالم هاين علميسي أو زيادة قفك جاهل هاين جهل أيوغا قبحايا مروال بعلمك برشاء يدونيا مركا الحمد لله نعمة الإسلام أيانو هايسنا درسينا هاتا نوغو الرأي وحا آنوغو هدل الدونا إن شاء الله تعالى دادكي وناكسناي أو سلف الصالح دأبي قودة يا رقم كودا إلهي سبحانه وتعالى نعمة الإسلام كأوسيي هيرك أي جارين شرفت أي ليهين يا إسلامكو وحا أوسيي أو قروح ذا أو أنا قرم ما أنت نلوك جبا هاي إن أنا كضا ينلوك جبا هاي لأنهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم معايا لو حي كضا يدين رسولك عليه الصلاة والسلام أي كضا يدين الحمد لله sidaas ay anagana nagu soo gaarsiiyeen da'bigi saalixa hay oo wanaagsanay iyo maartay suluugi
qofka muslimka ahay laga doonayay ayay saasoo kale nagu soo gaarsiiyeen. dad waxay ahaayeen qalbigoodu uu dahiran yahay, dad akhlaaq wanaagsan ayay ahaayeen oo khuluqdii nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahi uu dhahay wa innaka lacalaa khuluqin cadiimin. nebi maxamedow waxaad ku sugan tahay dabeecad wanaagsan ayaad ku sugan tahay. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam aayaddaas waxaa fasiray umunaa caaisha xadiiska saxiixulbukhaariga sida uu dhigaayo oo waxay tiri kaana khuluquha alqur'aan. nabiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisu qur-aankay aheeday. macnaha waxa weeye qur'aankaas ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku camal falayo. qofkii qur'aanka ku camal falo caamil qur'aanka ku camal fala noqdane ilaahay akhlaaqdiisa waa wanaajinayaa. heeda rasuulkii oo kale la noqon maayo, laakiin qof waxau noqonayaa suluugii nabiga calayhi salaatu wasalaam qaada ayuu noqonaya, wadadii nabiga calayhi salaatu wasalaam qof qaada ayuu noqonayaa. waxaa la rabaa inaan akhlaaqdeena aanu wanaajino, khaasatan dadka culummada ah oo diinta islaamka sheegta oo maaragtay culummada loo yaqaano. waxaana ka doonayaa suluugii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo akhlaaqdii dadkii wanaagsanaayo salafu saalix inaanu qaadano, inaan iska ilaalino muraa'inimada, istususka iyo isla camal weyninka iyo kibirka, waxyaabaha badan oo radaa'isha ah oo foolxumada ah oo qofka muslimka ah wax u dhimaysa in la iska ilaalisho. waxaa weeye iimaanku waa nuqsaanaa. iimaanka waxyaabo badan ayaa nuqsaaniyo foolxumo ah haddii lala yimaado ayaa nuqsaaninaya. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay xadiis oo imaam muslim wariyey laysa almu'minu bidacaani wala allacaani wala alfaaxishi wala albadii'i yow rasuulku. mu'min ma ahanow rasuulku calayhi salaatu wasalaam. macnaha waxaa loola jeedaa mu'min iimaankiisu kaamil yahay maahan, iimaan oo dhan lagama wada anfinaayo. qofka dadka dura oo nasabkooda wax cirligooda wax u geysta, sharaftooda wax u geysta, mu'min ma ahanow rasuul qofkaas. waxaa laga yaabaa dadku inay u badan yihiin inay wax iska sheegaan Soomaalidu, oo isduraan, oo qofka isdacniyaan, oo wax iska sheegaan, oo qof maaragtay muslima lagu dimbaabo oo la xanto oo wax uusan ahayn loo nisbeeyo. xataa wuxuu yahay hadoo loo nisbeeyo uusan raali ka ahayn qaybo ayay noqonaysaa. midka lacaanka ahoo lacnadida badan oo dadka caayo afxumada badanna mu'min ma ahna rasuulka calayhi salaatu wasalaam. laysa almu'minu bidacaani wala allacaani wala alfaaxishi, iyo midka fuxshiga kalaamka oo qabiixa ah afkiisa oo mar walba uu ka soo baxayo. wala alfaaxishi wala albadii'i, iyo midka waxay Soomaalidu u yaqaanaan carab lulatay dhahaan. qof waxa weeye wax alaala wixii lisaankiisa soo qabtaan u aaba yeelin ee isaga hadlaay weeye, lisaankiisa wuxuu soo qabto. badii'a waxaa badaadatu lisaan waxaa la yiraahdaa dadka afxumada ee maaragtay qaba ayaa la yiraahdaa badii'a kaasaa la dhahaa. marka waxaa la rabaa inuu qofka mu'minka ah jawaarixdiisa oo lisaanka iyo farjigu ay ugu weeyihiin oo iska ilaalisho. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay man yadmanu lii maa bayna lixyayhi wa rijlayhi. waryaa ii lamaano qaadaayo ii ballan qaadaayo labadiisa lugood waxa u dhaxeeya iyo labadiisa lafdaan afkiisa waxa u dhaxeeya, oo admanu lahu aljanna. rasuulku calayhi janna aan u lamaano qaadaa. marka waxa waaye maxay tahay maa bayna lixyayhi? waxaa laga wadaa lisaankaa laga wadaa. dadka qaar waxaad arkaysaa dhahaya war anigu waxaan doona waa iska sheegaa, qalbigana waxba igama jiraan. waxaad dhahdaa lagu qabanaya. warijlayhina waxaa farjiga ayaa laga wadaa. labadaas qof yaa ii damaano qaadaayo inuusan dembi ku gelayn oo janno u damaano qaada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. rasuulka calayhi salaatu wasalaam janno u damaano qaada. ilaahay yaa siiye subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahay waxa gacantiisa ku jira ama yadda ilaahay ku jira, wuxuu rabana inuu ka baxsho, wuxuu rabana uu ka diido, ilaahay yaa siiyey. marka waxa weeye waxaa la rabaa inaan ku dadaalno waxa wanaaga oo akhlaaqdeena suubinaya. nin caarif ahayo weyn oo la dhihi jiray Axnaf ibnu Qays oo aad iyo aad maaragtay u akhlaaq wanaagsanay, culummada islaamkuna ay yaqaaniin oo nin mashhuur ah, ayaa waxaa la yidhi miman tacallamta alkhuluqa la yidhi. axnafow yaad akhlaaqda fiican ka barataa la yidhi. markaasuu wuxuu yidhi min Qays ibnu Caasim alminqari. waxaan ka barta uri nin la yidhaha Qays ibnu Qaasim
oo nima la yiraahdo min qari ka dhashay Qays ibn Qaasim asna wuxuu ahay nin caalim oo caarif oo ahay oo caabid oo ahay oo weyn oo ahay oo la yaqaano hadda waxaan waxa weeye Ilaahay xaqiisa ayay ka timaadayo akhlaaqda Ilaahay quraanka uu nagu baray rasuulkuna waana baray laakiin qof walba qof oo wax ka sii baranaya adigu macallin maad leedahay macallinkii macallim uu leeyahay sanad xadiiska doosan lahayn waa munqadica la yiraahdo waxa uu ku abtirsanaa marka sheekhiisi oo tarbiyeeyay ayuu markaas oo tilmaamaya markaas wuxuu dhahay marka waxa la yiri qiila wama balaga min khuluqihi akhlaaqdiisu maxay gaartaa xagee akhlaaqdiisu darajada ay gaartay akhlaaqda xagee ka gaaraa la yiri markaas uu dhahay baynama huwa jaalisun fi daarihi waxa weeye maalin asagoo gurigiisa fadhiya id jaa'at khadimun lahu bishawa waxa weeye gurigiisa asoo fadhiya ayaa qaadumad uu lahay malaha adoontiisi waaye ayay waxay u keentay hilibkan la soo solo oo solayga ah oo amba digaag gale amba xayawaankan kala leh oo kulayl ay u keentay fasaqada min yadiha ala ibn lahu weelki markaasi wixii ay ku jiraan kulaylka ahay ayaa gacanteedii ka fakaday markaas wuxuu ku dhacay wiil oo isagu uu dhalay ninka la yiraahdo oo sheekha caalimka ahay Qays ibn Caasim la yiraahdo famaata isla markii uu dhintay markii canugi halka markay soo waday jaariyadii waxa weeye wiilkii waxa ku dhacay weelkii ay wixii ku waday wixii kulaylka ahay oo asaga u waday qaadumad u ahaaday wiilkii ay ku dhaceen wiilkii hore ka dhintay fadahashatil jaariyatu gabadhi marka waa wareertay adoonti waa wareertay waa kulay waa lagu dilahay istiri haddana waxaad arkaysaa ma dhacaysa taas wadamada qaar kood oo muslimiinta dadka qaadumiinta u shaqeeya ma ragga iyo dumarka siday u gelayaan iyo sida ay dhibaataynayaan waad aragtay taas waxa keenaya ku amal farid la'aanta diinta qofka haduu diinta ku amal falayo wax kasto oo xun oo ka leexda waxyaabaha sabarka u baahana waa u sabra la soo sabarkiisu lil ilaahi daraadiisu yahay marka ay wareertay oo istiriwaa lagu dilaya ayuu wuxuu dhahay Allah raawa calayki oo dhahay wax argagax dushaada maahan waxba hees argagaxinin waxba hanixin iska tartiib soo dhahay anti hurratun liwajhi Ilaahi ta'ala wuxuu dhahay marka Ilaahi daraadiisa xur u tahay fiiri akhlaaqdaas maanta ma hayna wax yar maanta hadina la ka baasho meelna la istaajiyo la arki maayo wax ka saadaan maqalna qofkan ku maqalna waa daba galeynaa ciidan u sabrayna ma jirto akhlaaqdi rasuulka kaleey salaatu wasalaam iyo dadkii wanaagsan oo salafu saalix saasay ahay akhlaaqdoodu waxa uu dhahay xur aad batayba waxayba ka heshaba anugu ay dishay xurriyayba ka heshaba waa ku xurowday meeshaas marka meel waxay ahayd laga fisho in la dilo qof aan markaasi waxa weeye dadku waxay Soomaalida looma ooyaanka ay dhahan weeyo qof adigu maaragtay iska saasa hada maanta dadka jooga way dili lahaayeen maaragtay waxa sabab maba aysan dhihi lahayn marka wuxuu aaminsan yahay oo rumaysan yahay qadarka iyo qadaha Ilaahay raali ku yahay hadana waa qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigiisa si markii uu shariicada Ilaahay ku amal falay Ilaahay qalbigiisa dahiray weeye oo qalbigiisa wax adduunyaha ku weyn aysan jirin sidaas ayuu ahay marka bal arintaas hadaan anagu isku dabaqno isfiirina xageen ka taaganahay weeye marka waxa dhacday waxa jirtay sheekh asagana la dhihi jiray Aba Uthman al-Hiri ayaa waxa la yiri meel oo wadaah oo soo maraa la yiri likaasna wuxuu ahay nin taqiya oo caalim ayuu ahay waxa soo maray meel wada ah oo waliba jid marshabiyeedka waxa hadda u naqaano waqti oo duhura oo qoraxdu aad iyo aad u kulanta oo kulushahay fa ulqiya alayhi ramadun min sadhin guri saraho dushiisa ahay oo malaha dabaq ahay ayaa waxa loogaga soo riday dambas oo kulayl ah ayaa lagu soo riday markaas dambas ayaa lagu daadiyay dambas sheekhi waxa waa ku gubtay waxa gaaray markaas waxa weeye
fatagayara asxaabuhu dadkii asxaabtiisa ahay oo daba socday oo maaragtay dadka oo waxbaray oo agtooda ku weynaay sheekhayo maaragtay dambas lagu soo shubay dambasina uu ku gubtay maxaa la isdhihi karaa markaasi waa la ihaanaystay dagaalaa dhici lahay meeshaas dambasi markii lagu shubay weliba dadkii way baxeenoo wabasaduu alsinatahum fi lmulqi waxay lisaanka ku fidiyeen oy caayeen dambasaas qofkii soo shubay hadda waxaa weeye asagana waxuusan amar uusan bixin lama samay karo abu cusmaan alxiiri markaas waxau dhahay laa taquuluu shay-an u dhah waxbaha dhihin u dhahay hal kelmo cid dhihi karta ma jirto u dhah man istaxaqa an tusaba calayhi naar fasuulixa cala ramaadi lam yajuz lahu an yaqdiba u dhah bal fiiri bal ereygaas qofka maanta jirta oo maqaam darajaale ama qof diin haysataa noqoto ama qof darajo adduunyaha kale haysataa noqoto wax kasta noqotee yaa arintaas ka soo fulaysaa marka insha Allah ta'ala darsigaas oo al-khuluqul hasan ah ma kana alayhi salafu salih darsigaas koobaad intaas aan ku soo koobaynaa hada wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh